حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. jamciyadda cibaaduraxmaan oo ah jamciyadda maamusha qaar ka mid ah madaarista magaalada Hargeysa ayaa tartan quraan u qabatay qaar ka mid ah madaarista ku yaala degmada Maxamed Mooge. Tartankan oo ah mid taxane ah oo jamciyaddu qabato bisha barakaysan ee Ramadaan waxa uu ka dhacay markiiska Ar-Raxma ee degmada Maxamed Mooge. Xafladda gunaanadka tartanka bisha Ramadaan ee jamciyaddu qabatay ayaa lagu abaalmariyay ardaydii kaalmaha hore gashay. Xafladda waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha jamciyadda cibaaduraxmaan salaadiin qaar ka mid ah culimada degmada Maxamed Mooge qaar ka mid ah maamulayaasha ardaydii tartanka ka qayb qaadatay waalidiin iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyntii xafladda iba furay Sheekh Mursal Saciid Cabdilaahi waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan dhamaan si qiimo badan u salaamayaa marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladdan lagu ikraamayo lagu tacdiiminayo كتابك إلهي يا كلام رب العالمين كم يديه سلطانك معلمين تا مدحضة جمعية أرضيدا كراميسن كلامك إلهي تبارك وتعالى كتر تميسي يا معلمين تودا يا والد كودا وحنا ذكر سلام يا تحية أهل الجنة في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا يهور مريبا كل ومضل كراميسن وشرف بدن مضل iyo goob iyo xaflad lagu maartay maamuusayo arday kalaamka Ilaahay tabaaraka wa taala ku tartantay waa madal aad iyo aad u sharaf badan meel la xaadiro waa meelaha ugu sharafta badan weey xaflad laga qayb galo xaflad runtii ka sharaf badan xaflad lagu weyneynayo kalaamu rabbil caalamiin runtii ma jiro wax la barto oo ka qiimo badan kalaamka Ilaahayna ma jiro sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan kalaamkiisu uu uga sareeyo dhammaan wax ka soo la barto ayaa dadka baranayana ay uga sareeyaan dhammaan cid wax baranayso dhan sidoo kale waxa madasha ka hadlay gudoomiyaha jamciyadda cibaaduraxmaan Cabdinuur Maxamuud Cabdilaahi walaalayaal waxaan u mahadnaqayaa dhammaan khiyaarta madasha joogta ee teatar kasto ay leeyihiin ugu horeeyo suldaankeena Suldaan Axmaan Baane Allah barakeeyo iyo culimadeena waaweyn xaafadda maamulayaasha ardayda tartamayaasha waalidiinta intaba waxa weeyaan aad iyo aad bay mahadsan yihiin ujeedadaynu markaa maxay maanta iskugu nimid waa inaynu waxa weeyaan soo khatirno musaabaqadii rabadaaniga ahayd ay fulin jirtay markaa jamciyadda cibaaduraxmaan sanad kastana insha Allah inoo bixi jirtay ardayda markaa kaalmaha galay ee 1 iyo 2 iyo 3 ayaa insha Allah maanta halkan abaalmarintii ay mutaysteen aan ku guddoonsiin doonaa dhammaan ardaydu aad iyo aad bay juhdi iyo dadaal iyo markaa waxa hawlkarnimo ay u muujiyeen iyaga iyo macallimiinta kusoo tacabtayba waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr aljazaa waa markii koobaad markaa muxsin xaafadda degani waa hawsha markaa waxa weeyaan qayb wax ka qaatay muxsinka waynu sheegi doonaa Ibraahim Maxamed Ciise weeyaan ninkii garanaya shirkadda Nuuxle Allah barakeeyo runtii mas'uuliyiinta jamciyadda iyo odayaal xaafadda hawshaas markaan ula tagnay si wanaagsan buu soo dhaweeyay waxaan leenahay jazaakumullahu khayr aljazaa marka waxa weeyaan waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba madashu way mahadsan tahay ugu horeeyo suldaankeenu waan mahadsantihiin boqolkiiba boqol baa mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale waxa xafladda ka hadlay oo isaga dambeeyay qaar ka mid ah salaadiinta iyo marti sharafta ka soo qayb gashay waxaanay ku dheeraadeen faa'iidada tartanka Qur'aanka uu leeyahay da'yarta dhigata madaarista diiniga iyo in ay tartamadan oo kale ay u yihiin dhiirigelin macallimiintii wax soo bartay waalidkoodii ku dadaalay intaba waxaan leenahay jazaakumullahu khayran ilaahay idinka abaalmariyo wax fiican baa soo qabateen camalkuna runtii haddii
la qiimeyn waayo oo runtii la weyneyn waayo waxa uu maaragtay darajadiisii ma helayo culimada ay naga daragsiiyey runtii oo badan nagu celceliyay axaadiista iyo aayadaha iyo maaragtay qiimaha qur-aanka uu leeyahay iyo halka uu geeyahay iyo darajada uu leeyahay midda quri anugu aan maanta dardaarmaya waxa weeye waxaan u baahanay inuu inaga muuqdo oo dadka qur-aankii bartay ee dhallinyarada ah ee maanta aynu hor fadhido iyo inta lamidii wanaaggaas inay horta ictiqaadaan inuu jiro waxa haddaanu qofku aaminsanayn oo aanu qalbiga ka gelin oo aanu wallaahi maanta wax fiican baad haysataa oo dadkii adigaaba ka sarreeya ama intii ugu wanaagsanayd baad ka jirtaa halkaa haddaanu gaadhsiisnayn dee ma noqonayo halkeedii markaan waxaan leeyahay qodobka koowaad ardaydu iyo intiinan hor fadhido ay kow ka tahay cidda uu ilaahay sharaftaas siiyey axaadiista iyo aayaduhu qur-aanka ay noo sheegeen ee runtii dee aynu aaminsannahay inaynu sidaa ictiqaadno oo aan aaminno inaynu darajadaas raaxaysano halkan waxaynu u fadhinaa un inaynu la wadaagno farxadda iyo dareenka ardaydeenii musaabaqaadka iyo tartanka jamciyata cibaaduraxmaan galay runtii marka hore waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaana watacaala marka xigta xubnaha jamciyadda uga horeeya guddoomiyaheena walaalka sheekh cabdinuur ilaahay khayr ha siiyo walaalka sheekh cabdul iyo sheekh cabdidaan iyo dhammaan shaqaalahoodaba waa mahadsan yihiin intaa waxaa raacdo maamulayaasha iyo ardayda in loo duceeyo iyagana inaynu markaa halkaa kasii wadno macnaha fara badan siduu sheegay adduunyada waxba ma tarto laakiin dhiirigelinta ardayda in lala tartan baa la gelayaa oo maqsadka ka dambeeya uu yahay inaynu qur-aanka ilaahay xifdino dabeetana aynu soo bandhigno maaha maqsadka inuu lacag qaadan ilaa tartanka ugu sarreeya magaalada lagu qabto ilaa ka ugu hooseeya maqsadka haddaad u fahatay ama gaari la qaadanayo ama lacag waddadu way kaa lunsantahay waddada dib ugu noqo dib usoo raac maqsadka ugu weyni waa in qofku uu ku talagalo inuu qur-aanka qaybo waa horumar weeye waa dhiirigelin degmada u gaara waa arrin wanaagsan weeye cidda maalgelisay iyo cidda fulisay iyo cidda ka shaqaysay intaba jazaahum allahu khayra jazaa ayay leena walaalayaal wax la weyneeyo kitaabka ilaahay baa ugu weyn wax la barto kitaabka ilaahay baa ugu weyn wax lagaaga dhowaado kitaabka ilaahay baa ugu weyn waalidka waxaan u sheegayaa ubadkooga halkan maanta ay fadhiyaan ay tartameen amba kaalmaha hore ha galaan mayaanay gelinay inay guulaysateen dadkeenu maanta meelo kale ku warwareegaan maadi iyo xaggaasi ku warwareegaan laakiin qofka kitaabka ilaahay kaaga dhowaada aakhiri adduun midna ma khasaaro weli lama arag qof kitaabka intuu xifdiyey ku camal falay oo la leeyahay maxaan ku dhahay busaaraddu iyo arsaaqad wax la'aan ayuu gaajoonayaa ninkii hebel reerkiisii amba isagaba busaarad baa ku dhacdayoo waxba ma haystaanoo way bakteeya anumaan arag horta laakiin waan la arkay dad PhD sita oo cilmi maadiya soo faa'iidaystay oo reerkooga aan waxba haysan amba aan shaqaba haynba maanta macallimiinta qur-aanka lamaba helaba dirqi baa lagu helaa way ogyiin maamulayaasha halka fadhiya macallin qur-aanka dhigi karaayo oo qur-aankii sugay oo macallinnimo diyaar u ah waxa weeye dirq baa lagu helaa aad bay u adkaataa laakiin diintu waxay u baahan tahay tilmaan qofka in la tilmaamo oo intuu ubadku yar yihiin diinta lagu barbaariyo qur-aanka la baro la hago xilkaas yuu saaran yahay waalidku saaran yahay waalidka ilmihiisa qur-aanka bari waaya uu ku dambaabaya waalidka ilmihiisa diinta bari waaya uu ku dambaabaya aakhiro taa qalbiga waalidku geliyaa aakhiro laa shaka waa lagu qabsanaya hadduu leexdo haddii laakiin diinta aad barto qur-aanka aad barto diinta aad barto oo markuu qaan gaadho isagu si kale uu noqdo waxa weeye aakhiro laguma qabsanayo xilkaaga waad ka soo baxday intuu yaraa waad bartay qur-aanka iyo diintii ugu dambeyntii waxaa xafladda soo gunaanaday guddoomiyaha guddida wanaag fariista iyo xumaan reebista degmada maxamed mooge sheekh khadar waxaana hadaladiisii ka mid ahaa qofka qur-aanka xifdiya iyo wanaagku leeyahay iyo sharaftu leeyahay iyo caqabaadku leeyahay baan ii sheegay waata koowaadee dee qiimuhu leeyahay waxaa inoogu filan qowlkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam سيدي بعثمان بن عفان أورينا رضي الله عنه البخاري غير كيف قصناذي رسولكم الله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحينكو شرف بدن وينكو كرامة بدن وينكو خير بدن قفك قرآن كبرته يسقم مدد كبره يا قولك يا عمر بن الخطاب رسولك عليه الصلاة والسلام كورينا أولها رسولك عليه الصلاة والسلام إلهينا يرفع هذا الكتاب أقواما ويضع الآخرين
ilaahay dadkan kitaabka dadna kor buu ugu qaadaa dadna hoos buu ugu dhigaa qiimahaas ay leedahay kitaabku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ina yidhi walaqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum waxaan igii soo dejinay wuu ilaahay leeyahay kitaab ay sharaftiina ku jirto waa sharaftiina ayuu ilaahay leeyahay sharafta meel kale lagama raadin karee yacni waxa laga raadinayaa kitaabka ilaahay oo waayo ilaahay qofka sharafta doonaya kitaabka ilaahay ka raadiyo soo doonaysid in qiyaamaha ilaahay ku soo saaro adigoo nuur iyo iftiin leh soo doonaysid in xabaasha ciidaada ayna cunin maxaa ka mid ah qofka qur'aanka xifdiya xaafidul qur'aanka ah saddexda ay xaaraan ka tahay in ciidu ay cunto oo rasuulku inoo sheegay ayay ka jirtaa calayhi salaatu wasalaam marka qiimaha sharafta badan ayuu leeyahay waa kee waa qofka qur'aanka bartay kuna dhaqmi weeyaan taa beddelkeeda hadduu qofka qur'aanka aw ku dhaqmi waayo xabaasha markuu galo ayaa madaxa laga bashkaaxinaya wallaahi alcadiim sida rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam madaxa ayaa laga bashkaaxinayaayo madaxaa laga dilaya ilaa inta qiyaamaha la soo saaray marka labadaa inaynu qur'aanka haddaynu baranno alqur'aanu xujatu laka aw calayk in qur'aanku abuu kuu doodaya qiyaamaha oo janno iyo meel wanaagsan buu keenaya amba ilaahay intuu i bartay buu kutub xooray oo imisaa heesa imisaa meelaha mara intii qur'aanka ay barteen marka qodobka aan idiin sheegay walaalayaal waxa weeye qur'aanka aynu barannay si il aakhira wax inoogu gooyo aynu ku dhaqanno